guddiga gacanta ku haysa dhismaha wadada tabca isku xidhiidhsan magaalooyinka Ceelgaabo iyo Maydh ayaa xukuumadda Soomaaliland iyo ururka dhiid kala wareegay laba gaari oo mid ka mid ah uu yahay bulldozer isla markaasna ka shaqeyn doonta wadada isku xidhiidhsan magaalooyinka Maydh iyo Ceelgaabo. Dhismaha wadadana ayaa bulshada reer Soomaaliland waxay ugu fadhiday muhiimad weyn waxaana ay xidhiidhin doontaa degmada Maydh iyo waliba guud ahaan deegaanada Soomaaliland. Wadadana ayaa ahayd mid ay baahi weyn u qabaan shacabka ku dhaqan deegaanada waqooyi ee gobolka Sanaag. Haddaba xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo waliba hay'adda wadooyinka ee Soomaaliland ayaa wadadan ugu deeqay bulldozer qaban doonta 4 shaqo ay qaban lahaayeen 4 bulldozer oo kale. Sidoo kalena ururka dhiid ayaa iyaguna ugu deeqay booyad biyeed oo ka qayb qaadan doonta dhismaha wadadani. Munaasabadii qalabkan lagu wareejinayo oo ka qabsatay gudaha magaalada Ceelgaabo ee xarunta gobolka dalxiiska ee Ooyaasha Sanaag ayaa waxa goobjoog ah mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo waliba maareeyaha hay'adda wadooyinka ee Soomaaliland cuqaal iyo madax dhaqameed kala duwan. iyaguna ugu horeyntii munaasabadaasi ka hadlay isla markaasina hadaladaasi ay kala dambeeyay Caaqil Cali Biirif oo ka mid ah cuqaasha deegaanada waqooyi ee gobolka Sanaag isla markaasina ka wakiil ahaa kambanigii keenay cagaftani iyo waliba mas'uuliyiin kala duwan. cagaftii iska feertarta ahayd ee loo soo iibiyay boorta tabca ayaan maanta ku wareejinaa maamulkii heer deegaan ee gobolka iyo degmadaba labadaba iyaga ku wareejinaa. waxay ka kooban tahay cagaftii qalabkeedii oo kaalka yaala oxygentii iyo tuumbadii iyo saacadii iyo shirkaas isaguna bahalka leera jeeg hambarka ee garaacaya buurta garaaci doona insha Allah ee ku xiran bahasha xagaana waxa saaran jeeg hambarkii iyo laba ay ku qodayso dhulka oo laba bahalo ay ku kuxoog afka lagu xidhayay marka dhamaantood waan wada keenay ma waxaan ku wareejinaa maamulka gobolka iyo ka degmadaba labadaas ku wareejinaa maanta bahasha waxa la soo siiyay lacag dhan $150,000 $130,000 waxay ahayd lacagta binadkii hore ee uu qaatay ninkii xaqla ahaa 12 cashuurtii bay ahaayeen waxa iibsay wasaaradda maaliyadda horumarinta oo mas'uul ka yahay Dr. Saad Cali Shire halkan waxaan aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland tan qurba joogta ama ururka aan ku jiro diid la yiraahdo halbowlo weyn waanu ka qayb qaadanay walina way socotaa hawshoodu booyadaana hadeer waa ku soo daray waxay ka baxday akoonka diid alaankaana hawsheeda waan ku jiraayo shaqaal wareejinayna oo kulmadii wasaaradda maaliyadda anagu wakiilaan oranayaa cagafta ay wasaaradda maaliyadda soo iibisay anagu wasiirka uga wakiila waxaan u oranaynaa kelmadiisii ahayd wareejinayo wadadii tabca ama wadooyinkii iskaafeetar runtii in badan bay marxalado badan bay soo martay waxay soo martay baahi badan oo ka jirta isku xidhka badda iyo bariga waxaan la maray in la doono in barsidii ay fududaan lahayd hawshaas iyadana aan u mahad celinayaa wasaaradda hawlaha guud oo iyadana fududaysay sarfeeye ay soo sameysay oo badan darteed hawshan qayb ka ahayd iyadana waan u mahad celinayaa waxaan kale u mahad celinayaa ururka deed oo u iibiyay booyadan wadada tabca iyagana aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kale u mahad celinayaa cid kastoo qayb ka ahayd wadada tabca inay dhaqaaqdo waayo waa halbowlaha gobolka ay ka mid tahay sababta ku tahay deedekada la'aanteed xataa inooma dhaqaaqayso haddaan wadada qayb laga qaadan maritaankeedii waayo halkii loo marayay gobolka dhanbe ilu tahay cid kasta wadada way martaa cid kasta inay ka qayb qaadato waajib dawladda waayo wadada cidna ma oran gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan iyo waliba maareeyaha hay'adda wadooyinka ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Maxamed iyo waliba maayirka degmada Ceelgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyagoo uga mahad celiyay wasaaradda maaliyadda iyo hay'adda wadooyinka ee Soomaaliland qalabkan ay ugu deeqeen wadada xiriirin doonta magaalada Ceelgaabo ee xarunta gobolka dalxiiska ee Ooyaasha Sanaag iyo magaalada Maydh bacda salaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in halka ku wareejinayno cagafta qiimaha iyo qaaya badan isuguna jirta 3 cagaf ama 4 ee iskaafeetar kaadka oo loogu talagalay inay ka hawl gasho markeeda hore wadada la yiraahdo tabca Ceelgaabo ka bacdina cagaf ay leedahay dawladdu oo GTA una shaqayn doonta dhammaan wadooyinka qaranka iyo dhammaan wadooyinka aynu leenahay ee dalka sida markaan leeyahay ujeedadu ma aha in ay mar haddii gaadiidku gaadiid dawladeed yahay waxaynu leenahay inagu qaabkaynu uga faa'iidaysano iyo qaabkaynu maamulano magacowga iyo teatarka ay ku soo baxdo wasaaradda maaliyadda ka soo baxdo wasiirkii nagu iibiyayna waxa weeye waa wadada tabca runtii anagu waxaan waana la weydiiyay maadaama aanu mas'uuliyadii hayno wadooyinka
maxaa wadada tabca loo iibin karaa ama miisaanada loo raacin karaa maxaa lagama maarmaana maadaama dhaqaale iska yiriyo wadanka xanuuno iyo koofida jiraan waxaanu taageeraynay inaan uga faa'iideyno oo codsiga ruushka u gudbino in ay hesho wadadaasi cagaf isugu jirta 4 nooc una ah tii halbowlana u ah inay arrinta wada qaban karto halkii 4-5 maadaama aan la heli karin wax walba inuga faa'iideyno midaynu wax walba uga faa'iideyno helaan doonayna sida kaleeto anagu runtii wadada waxaan noo shaqeynaa si dhow wadooyinka aanu wadnay ka mid tahay ee ka wadna gobolka Sanaag iyo gobolada dalka oo dhan mahadnaqaynaa dawladana waa ugu mahadnaqaynaa ragga soo shaqeeyay wasiiradana waa mahadsanyihiin iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guraday tabca ka socota ay yihiin kuwa 100% ee gacanta ku hayay marka hore oo haday maxaan ku raayay running cost ka imika ka socda haday tahay iyo haday tahay materialka hore yaalaba gacan weyn ku lahaa waan leenahay iyagana Ilaahay ka abaal mariyo arintaasi maanta waxay u baahan tahay inaynu waa tallaabo aad u muhiim ah oo maanta gobol ahaan inoo qabsoontay siyaabo yar hoose inta qaarkood loo fikiraa waxa lagu oranayaa cagaftii ku timid ay halkay tagaysaa yaa maamulaya siday noqonaysaa 100 su'aalood baa lagu weydiinaya laakiin lama arkayo faa'iidada ay inoo leedahay inta aqliga fiican li way dareemaysaa maalintii hore waxa la isla qaatay lacagtii miisaaniyadda la inoogu daray markii hore wasaaradda maaliyaddu ee 100,000 ahayd 100,000 waxa la isla laba iska roga lagu soo iibiyo labadii iska rogo marka la arkay dhibaatada taala buurta inay u baahan tahay mashiin ka weyn kan waxa la go'aansaday in maanta cagafta dhowrka nooc shaqeynaysa laynoo keeno عدنان عبد الرشيد علي تلفزيون كعالمي كلمة تي في عريق